يكايجا يريم كلا بتشركة يكايجا تدبات الشركة وإحنا نسكر حصلنا هنا ونحمر عنه وإحنا جيا لأنه شر. عويس ما الله روفانه أنا كردين جل على كينا رديه. iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Yuuftu uu hogaaminayo safar shaqo ay ku joogaan maalintii 10aad dalka Mareykanka gaar ahaan caasimadda dalkaasi Washington DC oo ay ku casuuntay hay'adda Heritage Foundation ee ka shaqeysa arrimaha siyaasadda dalkaasi Mareykanka gaar ahaan xalinta khilaafaadka xisbiyada dalkaasi iyo carbinta madaxda mustaqbalka ee dalkaasi Mareykanka isla markaana kulamo ay la qaateen guddida arrimaha dibadda ee Kongareeska Mareykanka kulamadan oo ay ka dhasheen in la abuuro xidhiidh dhexmara jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Mareykanka iyadoo guddidaasi qoraal mooshin ah u qortay Kongareeska dalkaasi qoraalkan oo ay ku dalbanayeen in loo sameeyo sharci cusub oo ay ku wada xidhiidhaan dawladda Mareykanka iyo jamhuuriyaddaasi Soomaaliland haddaba telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV oo makarafoonka la dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan degmada Wajaale ayaa waxa ay ka bixiyeen fikrado kala duwan waxana hadaladoodii kamid ahaa waxaan leenahay madaxweynuhu safarka uu ku tagay Mareykanka waa ku mahadsan yahay boqolkiina boqol waan ku garab taaganahay waxaan leenahay cadawgiisuna ha jabo ha guulaysto waxaan leenahay reer Soomaaliland dhammaantood waxaan leenahay hambalyo siiyo madaxweynaha alla isku raaca qarannimada iyo wada jirka waxa uu ahaa safar runtii aad iyo aad ugu muhiima qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan oran karaa waa safarkii ugu miiqaamka sareeyay ee ugu muhiimsanaa tan iyo intii ay Soomaaliland halganka ugu jirtay inay xorriyad iyo ictiraaf adduunka ka hesho marka runtii wuxuu oran karaa safarkaasi wuxuu ahaa safar midhadhal leh oo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland wax weyn ku soo kordhin doona habeenkii 60kii halkan aan joogay faraska halkan aan ku joogay hor baan lahaa hor calankeena la dhahdo aweyskii lagu dhaabay dhadadii iyo waraabiyo dhibcadii hadhinaysay dhurwaagii cascasaaya muslimka dhig ka idleeyay kii dhashiisa u qaaday iga dhoofshay habeen dharanteed iga biiyay iga yeelay dharaar direyskay ugu dhagsiiyay hadhaqaaqin abiid dhidmanow weligaaba yay ducadaydahay dhidmanow weligaaba dee maantana waxaan leeyahay caweys baa la dhoofay anoo aana ka dhinjin calankeena la dhahdo caweys baa la dhoofay muqdishoan ku dhirbaaxnay calanka Soomaaliland muqdisho uu ka horeeyay koodana Allah u barakeeyo keenana Allah inoo barakeeyo waanu ku ognay hawshu ku jiro iyo Allah la qabto isaga waftigiisba hawl adag iyo gobonimo meesha ka soo hooyeen waxaan hambalyo halkan dawladdeena aanu jaarkanay Soomaaliyana dee aduu berigii la qaxay waan yaraa waan garanayaa marka arrimaheegu iyada halka noqosho noogu laaban taa waa la ida aqoonsay lafteeda iyo hadaan aqoonsan halka wax naga xiga ma jiro wax naga xiga kaayaga dhuuxa ku jira iyo kaayaga dhabarka ku jira iyo kaayaga yareem kala bajirka iyo kaayaga toddobaad jirka waxaan isku raaxsanay in aanu xamar anagu wax naga yaalaanu jiro jamhuuriyadda Soomaaliland safar buu ku tagay Mareykanka safarkaasi aw soo aragtay horta waxaan arkaa guul noo soo hoyatay tan noo Soomaaliland aadna waan ugu farxsanahay Soomaaliya iyo Soomaaliland baan kala labo dano walaalo isimi baan nahay imakana kala goostay baan nahay horena u kala goostay marka Soomaaliya anaga wax isugu kaya laaban ma jiro dad walaalo baan nahay waanu ka naxayna maca dhibaatada haysata waxa weeyaan anagu Soomaaliland baa la leeyahay waa loo soo dhintay waa loo soo halgamay haddii kala dhimashaanu ka xignaabadee Rahmaan Rahiim hambalyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu hambalyeynaya arrinkaas ku dhaqaaqayna waa arrin fiican oo soo dhaweyn leh maasha Allah kulli dadka Soomaaliland waxaan lahaa madaxweynaha la soo dhaweeyo qolan jaarkan Soomaaliyana kulli waxaan u lahaa laba dal oo jaaraynu nahay waxba dhalaacay iyo aflagaadeen xoog kale helimayno horan u kala weynay marka madaxweynaha waan hambalyeynaya mar koobaad iyo mar labaad Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba dawladood oo jaara waxa weeye haddaydan xishmaynayn idin xishmaymayno karaamadooda nololka ku gaadhnay waa sayidina nabiyina Maxamed halkan meel lagu fikro ma oo lagu daalo waxaan leeyahay naga maseerina halkaanu gaadhnay waa darajo Ilaahayna siiyay madaxweynaha iyaguna uu ku maadsan yahay halka uu gaaray maanta kastaba ha ahaatee xildhibaanadan u gudbiyay Kongareeska Mareykanka qoraalkan abuuraya xidhiidhka Soomaaliland iyo dawladdaasi Mareykanka ayaan ahayn kii ugu horeeyay balse waxa ka horeeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska oo iyagu u gudbiyay baarlamaankooda in la aqoonsado Soomaaliland waa Cabdisalaan Maxamed Bade Bulsha TV Wajaale.